marka laga hadlayo arrimaha jawaasiista iyo sirdoonka jacaylka iyo gubashuba waxa ay qayb libaax ka qaataan dagaalka. Dumarka ayaa loo adeegsadaa aalad lagu dabo ragga amaba iyaga qudhooda ayaa la ugaadhsadaa mararka qaarkood si loo gaadho ninkeeda, walaalkeeda amaba qof uun kale oo ay ku dhowdahay kaasi oo lagu tuhmayo siro iyo xogo muhiim ah. Sida mararka qaar dabeen ahaan loogu dhigo, marar kalena si caadi ah ayuu jacaylku u abuurmaa. kadibna si iskiis ah ayuu isugu bedelaa midi afweyn oo lagu goosan karo waxyaabo badan, taasi oo ay adeegsadaan sirdoonada dowladuhu. taxanahan aynu bilaabaynaana waxa uu ku saabsan yahay wiil iyo gabadh reer Masar ah oo jacaylkoodu mariyay marxalado kala duwan, marxalad qurux badan iyo nolol hodanimo dhan kasta ka ah, kadibna si fudud isugu bedelay faqri iyo beerkaaga oo aan beerkaa xigin. lamaanahan oo ugu dambeyn ku dhacay gacanta sirdoonka Israa'iil ayaa looga faa'iideystay jacaylkii xad-dhaafka ahaa ee ay isu qabeen iyo baahidoodii qoys ahaaneed ee marxaladii xilligaasi ay marayeen. gobolka Minya ee saciidka dalka Masar ayay ku dhalatay Inshiraax Cali Muuse sanadkii 1937. waxaa la sheegaa qoyskooda noloshoodu inay ahayd mid dhexdhexaad ah, sidii caadiga ahaydna waxa ay bilowday waxbarashada iyadoo sanadkii 1951 dhammaysay dugsiga hoose dhexe. ayaamo kooban kadib markii ay heshay natiijadii dugsiga, farxaddii inantoodana ay si wada jira ugu dabaaldegeen qoyskoodu si ay uga nasato tacabkii iyo daalkii waxbarashada, ayuu aabaheed ugu soo kaxeeyey aroos qof ay qaraabo yihiin u lahaa, kaasi oo ka dhacayay magaalada caasimadda ah ee Alqaahira. Inshiraax waa gabadh yar oo aanay weynayn da'deedu, waxa ay leedahay indho waaweyn oo cadcad, jidhkeeda ayaa markaasi isku toosay inkastoo aanay da'deedu weynaanin. haddana qof kasta oo eega waxa uu ka dhex arkayaa quruxda ka soo socota halkaasi iyo dhammaystirnaanta jidhkeeda. quruxda iyo jamaalkeeda waxaa sii bilayay xishoodka iyo dhowrsanaanta. Inshiraax waa gabadh afgaaban oo xishood badan, inta badanna waxaa laga dareemayaa dhaqankii xidhxidhnaanta iyo koobnaanta u badnaa ee ka jiray magaaladeeda. Inshiraax iyo aabaheed waxa ay soo gaadheen magaalada Qaahira. halkan ayayna uga bilaabatay qisadii nolosheeda oo dhan ku yeelatay saameynta taban. inta aynu ku dhex jirno qisada Ibraahim iyo Inshiraax waxaynu ka dhex arki doonaa awoodda jacaylka iyo sida uu qofku ugu jebin karo dhammaanba curfigii iyo caadadii dadkiisa, uuna qofka u gelin karo qof ay kala deegaan iyo xataa kala dhaqan yihiin mararka qaarkood. dagaaladii Carabta iyo Israa'iil iyo sida dhibka u badan uu soo gaadhayay maatadii Carbeed, isbaacsigii labadii sirdoon ee Masar iyo Israa'iil iyo sidii labadooduba ay u ahaayeen awoodo aan la dhayalsan karin maadaama ay kala taageerayeen labadii awoodood ee markaasi ugu weynaa adduunka. ugu dambeyn qof kasta oo khiyaama jaajuusaha u gudbiya sirta waddankiisa, abaalgud kastaba markaasi ha kaga helo cadowga ah in ay ku dambeyn doonto noloshiisu karaamo la'aan adduun iyo ciqaab aakhiro. daqiiqado kooban kolkii ay socotay ciyaarta iyo dabaaldegga aroosku, Inshiraax indhaheedu markan waxa ay qabanayaan indho ka xoog badan oo aan eegi karin, haddana aanay ka maqnaan karin oo daqiiqad kasta ay rabto inay isha la sii raacdo. waa Ibraahim Saciid Shaahiin oo isaguna ilaaway wax kasta oo ku saabsanaa arooska. indhihiisu waxa keliya oo ay arkaan hal qof. waxaad moodaa in arooskaba keligeeda ay joogto, ciyaarta iyo mashxaraduna ay ka baxayaan iyada dusheeda. halka Inshiraax ay ku dhalatay gobolka Minya oo ka tirsan gobolada saciidka dalka Masar, xuduud dheer oo lama degaan ahna la leh dalka Liibiya. Ibraahimna waxa uu ku dhashay magaalada Cariish oo ka tirsan lama degaanka Sinai, xuduudna la leh Falastiin iyo Israa'iil, taasi oo ka dhigan inay kasoo kala jeedaan laba deegaan oo aad u kala durugsan kuna kala duwan wax kasta oo ay ugu horeyso lahjada iyo isfahanka xagga hadalku. maadaama uu Ibraahim dhashay sanadkii 1929, faariqa weyn ee u dhaxeeya da'dooda ayuu iyada kaga dhiiran yahay wax badan, waxaana uu go'aan keliya ku qaatay in meel kastaba kala dhacdee uu ogaado xaaladda iyo deegaanka inantan ay raacday naftiisii. arooskii ayaa dhammaaday waana lagu kala tegay, qof kastaana waxa uu ku laabtay gurigiisii isagoo sidiisii hore ah marka laga reebo Ibraahim iyo Inshiraax oo labadooduba ku laabtay guryahoodii iyadoo mid kasta uu ku dhex nool yahay kii kale. hurdadeedii ayaa wax badan iska bedeleen oo haddii ay badnayd way yaraatay, waxayna isugu soo hadhay hurdadeedii in yar oo inta ay ku jirtana ay ku riyoonayso Ibraahim. fikir iyo isla sheekaysi ayay bilowday. aroosku yaraaya
ma sidan fudud ayuu ku soo dhammaaday? haddii aad sabab kale mar uun ugu laabato magaalada Qaahira, ma laga yaabaa inaad ku dhex aragto Ibraahim? oo ma magaaladii sidii u weynayd ayaad qof ka dhex helaysaa? ayay isugu jawaabtay. waxay isweydiinaysaa weli, armaanuba isaga qudhiisu ahayn reer Qaahira ee uu soo galay oo ka baxay sidaada oo kale? ma laga yaabaa inaad isku magaalo tihiin oo adigoo xaafadahaaga dhex maraya aadba iska hor timaadaan? maya nasiibkaas maan lahayn, ayay isugu jawaabtay. talow hadda sidee weeye xaaladiisu? ma laga yaabaa inuu kaaga fekerayo sidaad adiguba hadda uga fekerayso? u malayn maayo, ayay haddana ku qancisay nafteeda. noloshu way sii adkaanaysaa, jacaylkuna wuu sii xoogaysanayaa. hase ahaatee saaka yididiilo aan la garanaynin sababteeda ayaa muuqanaysa. qudheeda ayaa nafteeda ka dareemaysa inuu jawigu ka duwan yahay sidii hore, mase garanayso sababta. wakhti yar kadib ayaa lasoo garaacay albaabka. waa Ibraahim iyo aabihii. inshiraax dadkii garatay sida ay wax u socdaanna fahantay. farxad ayay siganaysaa marba inay duusho, haddana waxay ka yaabaysaa inay ku jirto riyo oo waxay aragtaaba aanu run ahayn. allahayow run ka dhig ayay u badan tahay ducadeedu maalinkaas. Ibraahim iyo aabihii turtabadiiba warkoodii way caddaysteen. intii aanu aabbuhu jawaabinna, hooyadii ayaa dalabkoodii gaashaanka u daruurtay. gabadhaydu way yar tahay, sidaad ogtihiinna laba deegaan oo aad u kala fog ayaynu nahay. sidaasi darteed waxaad u socotaan marnaba ma noqonayso mid suurtagal ah, ayay maamadii soo istaagtay. hadalkii wuu taagtaagmay. inshiraaxna warkii ayaa gaadhay. farxaddiina waxa ay si fudud isugu beddeshay murugo iyo fakar kale oo cusub, kaasi oo laba jibbaar ka badan midkii hore. isla tashi badan kadib, inshiraax aabaheed waxa uu soo jeediyey in iyada loo dhiibo talada lana weydiiyo ra'yigeeda. isla markiiba halkii ayaa loogu yeedhay, waxaana la weydiiyey bal arrinkaas iyo sida ay u aragto. jawaabteediina waxa ay noqotay aamus.